السلام عليكم مقاهرة مeel bajagtiin oo markale muuqaal cusub oo ku eegi doona wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo akhbaaradada haatan la diiwaangelinayo Barcelona oo markan u dhaqaaqaysa Nico Schlotterbeck oo Borussia Dortmund Sergio Reguilon oo Inter Miami ku biiraya xilli Liverpool markan ay soo xirigelinayaan Ronaldo Araujo Bayern Munchen oo markan doonaysa goolaha AC Milan Chelsea oo difaac ka doonaysa kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest xilli Arsenal Chelsea iyo Man United isku hayaan ninka lagu magacaabo Kenan Yildiz iyo akhbaaradii kale ayaan eegaynaa haddii aan muuqaalkiisa noo la garay kanalkana subscribe nasar haddii aan ku bilowno akhbaaradii ugu dambeeyay suuqa warar dhowr ah haatan la diiwaangelinaya sheekada haatan la diiwaangelinayo waxaa markan ugu weyn oo saacadaha soo aadan lagu dhawaaqi karaa heshiiska laacibka lagu magacaabo Sergio Reguilon wiilkii horeetay ee Real Madrid iyo Manchester United iyo kooxda kubadda cagta ee Tottenham laacibkan ayaana haatan u muuqanaya mid u dhaqaaqaya dhanka MLS-ka kooxda ka dhisan ee Inter Miami ayaa ninkan doonaysa inay soo xirigeliyaan waxa ayna rabaan inay ninkan keenaan qalcad ay ku ciyaaraan xidigo dhowr oo haatan kooxda kubadda cagta Inter Miami ka tirsan ayaana hore looga soo qaaday kooxo kala duwan oo qaaradda Yurub haatan laacibka xulka Spain iyo kooxda kubadda cagta ee yiraahdo Tottenham markan wuxuu dhaqaaqayaa dhanka MLS-ka saacadaha soo aadanna waxaa la leeyahay sheekada laacibka waa la soo afjaraya oo laacibkan wuxuu noqon karaaba heshiis hordhaca oo dhanka Inter Miami uu u dhaqaaqa January markii la gaarana si rasmi ah ayaa sheekadiisa loo soo bandhigayaaba dhanka kale tan wararka hata la diiwaangelinayo qayb waxaa ka noqonaya kooxaha Premier League ugu waaweyn sida Arsenal Chelsea iyo Man United ayaa isku haya laacibka lagu magacaabo Kenan Yildiz kaas oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa hore dalab gaaraya 68 milyan laacibkan ugu gudbisay waxayna rabeen inay soo xirigeliyaan laakiin say kooxda kubadda cagta Juventus ayaa si cad ugu diiday kooxda Chelsea dalabkii ay ka soo gudbiyeen xidiga lagu magacaabo Kenan Yildiz sidoo kale kooxo dhowr oo Premier League ayaa ninkan si weyn u dareynaya Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay wada hadallo la fureen wakiilka Kenan Yildiz iyaga oo doonaya laacibkan inay u soo dhaqaajiyaan qalcadda caanka ah ee lagu magacaabo Emirates Stadium laakiinse haatan dagaalka sidoo kale waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo laacibkan xiiseynaysa Chelsea waxaa haatan si weyn ay weli u xiiseynayaan bacsiga loogu jiro Kenan Yildiz laakiinse haatan wararka soo baxaya qaarkood waxay sheegayaan laacibiinta kale ah ee Gebesa Rossi iyo Alexander Darbiel oo haatan u wada shaqeeyay Juventus labadaba waxay markaan leeyihiin laacibka lagu magacaabo Kenan Yildiz waa nin ugu muhiima kooxda kubadda cagta Juventus meelna uguma dhaqaaqayo kooxaha Premier League-na waxaan leenahay canduftiina gadaal u laqa marka saddexdan kooxood ee kala Manchester United Chelsea iyo Arsenal dhammaantood haatan waxay xiiseynayaan Kenan Yildiz dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea haatan waxay doonayaan difaaca kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest ninka lagu magacaabo Master Morelos oo kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest haatan bandhig fiican ku haysta Chelsea ayaa doonaysa waxayna rabaan difaacooda inay ku soo xoojiyaan wiilka reer Brazil ayaa haatan tartan weyn ugu jiraan kooxda ka dhisan qalcadda caanka ah Stamford Bridge kooxda ku ciyaarta markan waxay rabaan inay tartan u galaan xidiga lagu magacaabo Morelos sidoo kale Arsenal iyo Liverpool ayaa indhaha ku haya oo waxay rabaan laacibkan cajiibka difaaca dhexan ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest inay soo xirigeliyaan marka The Blueska xidiga dhowr ayay suuqa ka doonayaan Morelos markan qayb ayuu ka noqonaya sidoo kale kooxda kubadda cagta Arsenal haatan waxaa la leeyahay sida haatan wararka sheegayaan heshiis kordhin ayay markaan u soo bandhigayaan xidiga lagu magacaabo Timber ayaa haatan rabaan in heshiis ay ka saxiixdaan hore waxaa heshiis looga saxiixay laacibka lagu magacaabo William Saliba Bukayo Saka ayaa sidoo kale gabagabada sheekadiisa Timber ayaana haatan la rabaa in la gabagabeeyo xidigan weli waxaa loo soo bandhigayaa mushaaraad aad u badan ayaa loo soo bandhigayaa si uu baaqi ugu sii ahaado qalcadda caanka ah ee Emirates Stadium marka Arsenal haatan waxay ku guda jiraan howlgalka heshiis kordhinta ee laacibka lagu magacaabo Timber kaas oo haatan dooq weyn ka ah safka koowaad ee macalinka lagu magacaabo Mikel Arteta marka akhbaaradana Arsenal ayaa haatan laga diiwaangelinaya sidoo kale kooxda kubadda cagta Barcelona haatan waxay rabaan inay soo xirigeliyaan difaaca xulka Germany iyo kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Borussia Dortmund ninka lagu magacaabo Nico Schlotterbeck ayaa haatan doonaya soo xirigelitaankiisa xidigan ayaana ah xidig wacdara haatan ku muujinaya qalcadda ee ku ciyaarta kooxda Borussia Dortmund ee lagu magacaabo Sigland Iduna Park marka kooxda ka dhisan Sigland Iduna Park wiilkeeda haatan waxay rabaan in kontrakto cusub siiyaan maadaama laacibkan heshiiskiisa uu dhacayo markuu xagaagan dhamaado free ayaa lagu helayaa xidiga lagu magacaabo Nico Schlotterbeck marka Barcelona waxay doonayaan Nico Schlotterbeck inay soo xirigeliyaan difaaciyadoodana ay ku soo darsan Barcelona kulimada ugu dambeeyay
waxay la kulmayeen guuldarooyin aad u xanuun badan weliba haatan waxay rabaan xidigo dhowr oo difaaca ka ciyaara inay soo xirigeliyaan rag dhowrna waxay rabaan in qalcadda Camp Nou laga saaro marka Nico Schlotterbeck haatan wuxuu ku soo baxayaa dooqa macalinka lagu magacaabo Hans Flick oo haatan Barcelona hogaamiya sidoo kale wararka hadda la diiwaangelinay qayb waxaa ka noqonaya sheekada laacibka lagu magacaabo Ronaldo Araujo markaan kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa doonaysa waxayna rabaan inay soo xirigeliyaan Liverpool marka ay eegto suuqooda difaacyo dhowr ah 4 ilaa 5 gaariya ayay indhaha ku hayaan Ronaldo Araujo Maguire Stephen Portman iyo rag kale ayaa diiwaanka ugu jira haatanna waxaa la leeyahay xidigan xulka Uruguay iyo kooxda kubadda cagta Barcelona ayay rabaan soo xirigelitaankiisa marka Liverpool haatan waxaa leeyahay lacag gaari 43 milyan ayay diyaar u leeyihiin in ay kooxda Barcelona miiska u saaran waxayna rabaa January inay soo qaadaan Barcelona iyagu ruuxooda waxay rabaan Ronaldo Araujo inay iska diraan bandhiga dhaawacyo ayaa ku soo noqonaya bandhigiisa hoos u dhac weyn ayuu sameeyay marka xidigan haatan kabtanka ka ah kooxda Barcelona waxaa la leeyahay waa la fasaxaya Liverpool ayaan albaabka u taagan oo rabta inay ninkan qalcadda Anfield u soo dhaqaajiyaan marka wararka ayaa haatan soo kordhaya Liverpool difaacyo dhowr ah ay suuqa ka baadi goobayaan Maguire sheekadiisa waliba ay taagan tahay oo January ayay rabaan inay u dhaqaaqaan ama qaabilaasha ayay ku doonayaan marka haatanna xidiga lagu magacaabo Ronaldo Araujo ayaa markan sheekada ku soo biiraya oo markan waxaa la leeyahay macalinka lagu magacaabo Slot wuxuu rabaa xidigan inuu soo xirigeliyo qalcadda Anfield oo keensado Liverpool marka Ibrahim Konate ayaa iskaga dhaqaaqaya oo dhanka ay Real Madrid u dhaqaaqi karo oo Liverpool u diidanba inuu heshiis cusub u saxiixo marka nimanka Rediska waxyaabo badan ay markan suuqa ka doonayaan marka waan arki doonaa wixii ka soo kordha dhanka kale goolahayaha kooxda AC Milan ninkan lagu magacaabo Michael Magan koox dhowr ayaa isku haya kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa ninkan doonaysa qaabilaasha inay ku qaadaan sidoo kale haatan Bayern Munich ayaa indhaha ku haysta xidigan xulka Faransiiska iyo kooxda AC Milan ninkan lagu magacaabo Michael Magan bandhig fiican ayuu ku haystaa qalcadda caanka ah ee lagu magacaabo San Siro ama Giuseppe Meazza oo AC Milan ay ku ciyaarto marka AC Milan iyagu ruuxooda waxay doonayaan laacibkan inay sii haystaan oo meelna os uga dhaqaaqeen laakiinse Bayern Munich ayaa markan waxay rabaan ninkan inay u dhaqaaqaan soona xirigeliyaan marka sheekooyinka ayaa haatan farqaha isku dhagan oo waalisaya Chelsea waxay doonayaan ninkan inay qaabilaasha ku qaataan mar ayay ku dhawaadeen inay soo xirigeliyaan laakiinse uma aysan suurtagelin haatan waxay rabaan January inay dib ugu noqdaan xidiga lagu magacaabo Michael Magan AC Milan waxay doonayaan in kontrakto cusub ka saxiixdaan laacibkan Faransiiska shabaqan uu ilaaliya Bayern Munich ayaa haatan dagaalka ku soo biirtay oo ay doonayaan inay ninka lagu magacaabo Michael Magan ay keensadaan maadaama Manuel Neuer gabagabo uu yahay waqtigiisa Allianz Arena ninkan uu iskaga baxayo marka wararka ayaa haatan Bayern Munich ka cusub waxayna rabaan in AC Milan ay ka soo qaadaan ninka lagu magacaabo Michael Magan marka AC Milan hadii uu kontrakto u saxiixdiga Michael Magan way iibinayaan maadaama heshiiskiisa uu dhacayo samarka markii xagaagan uu dhamaado marka wararkana haatan ay soo kordhiyaan soo kale sheekada xidiga lagu magacaabo Marcus Rashford kooxda Barcelona ama ayuu ku joogaa xidigan Manchester United ma rabaan dib inuu ugu soo noqdo sidaa daraadeed haatan waxaa la leeyahay xidigan kooxda kubadda cagta Man United waxay rabaan in lacag 50 milyan ku dhow ee Barcelona kaga helaan laakiin Barcelona waxay leeyihiin 34 milyan ayaa bixinayna oo laacibkan heshiiskiisa marka Barcelona iyagu ruuxooda xidigan haatan waxay u arkaan inuu horumar sameynayo waxayna rabaan inay sii haystaan marka Unitedna waxay taagan yihiin lacagaha nasiya ninkan fasax ayuu naga yahay marka waan arki doonaa wixii ka soo kordha hadii muuqaalka soo la garay kan ka subscribe no sir goodbye